waxaan soo dhaweynayaa maxamed axmed calasow in uu isna kalimaadkiisii ku aadanaa munaasabadda inuu halkan ka yiraahdo insha Allah tacaala. السلام عليكم دمان كسوق بقلياشة أهلك قرابة أو ككوبن أول سكتريسكا ككوبن تابل شوين ترير مدلود ودن كان دقين هديتها دمر هديتها فنانين دمر قارهان هديتها جودهان دت كان أبويهن كأه عاوة يا علومة يا خيارتها يا دليرة فرنتي واحد مدائنا الله كلا هارين مناسبة دان وأنا واحد كفر أحسن هاي بقول كبا بقول waxaan leenahay marka ugu horeysa sida hore loo xusay ama gabayadii ama baramuradii ama ay noo tiriyeen walaalaheen ee diyaalkeen adeerayaasheen waxaan horta hoosta ka xariiqaynaa kelmadda ah runtii oo aniga aad iigu dhagtay biirka macabnee bunkaan dubanaa biirka macabnee bunkaan dubanaa biirka macabnee bunkaan dubanaa mudulood haddaan nahay waxna lagu yaqaano waaye mararka qaar الصغير الدولي البعادي كدارتي حكايا كيد بعد عادي وحكايا عبدي المعان الفيديو مع حسائد علي عليك وعيين هذا ما سدين وحن نحتاج كذا أمريكا وحن صدق وينا أديركن حاج علي وقاس عبد الله وقاس حيو وحن لنا هاي وقاس كنا حاج علي وإنا وقاس حديث الله فيريو ودنا عسى كفير إنه وإنا وقاس ونب وحكلوه هاي وقاس كأبي دكلي هذا عبد الظاهر إسلام قريولي أو إسقنا عطسنا إنه كلمات كيس سوكو الصبية القولية البعادي كدارتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة روح السلام يا أوجاز كان سلام يا دمان أصحاب هالكن كسوق كشيء. ما يعيق عبد الظاهر واي وحان كسو جدا غير سو كسو جدا. واليوم كذي مركو هالكان ومنصن ديار جروين. لكن مرة روح هوا. ما دام أنا جاهز الله يعرف كمدلوت. دول يا روحان dad badan u sheegay meesha laga burburayo ama society ay ka burburayaan waxa waaye dhaqanka waay dhaqanka wuxuu u taagan yahay bulshada inuu ilaaliyo dhaqanka hadduu burburo waxaa ku xugo deegaanada ayaa ku xuga deegaanka ninka siyaasiga ma dhihi karo bulshadeeda ma dhihi karo laakiin dhaqanka hogaamiyaasha waxay dhihi karaan dadkayga marka waxaa waaye halka laga burburayo waxaa horta dhaqanku waay sida badan Africa siyaasadeeda waxay ku dhisan tahay political identity waa qabiil ku dhisan Africa oo dhan Africa haddaa fiirisaan ama West Africa qabiil iskuma dagaalo sababta waxaa nin walba deegaan uu leeyahay waxay u dirsadaan dawladda dhexe siyaasiyiin ay u dirsadaan siyaasiyiintaas waxay ku ilaaliyaan danaha dadkaas balse ninka siyaasiga waxaa ka muhiimsan ninka dhaqanka waay dhaqanka hadduu halaabo marka deegaankana waa nabad guuraa as society ahaan ku burburaya marka waxaan dhihi lahaa maadaama ugaaska halkaa noola joogo waxaan ku adkeynaynaa dhaqanka in la ilaaliyo deegaanada marka way hagaagayaan laakiin haddii dhaqanka uu burburo ninkii siyaasiga marka wuxuu noqonayaa nin corrupt uu noqonayaa because wax celinaya ma jirto
siyaasiga marka waxaa gacanta qaban karo waxaa waaye ninka dhaqankana wuxuu ku habboon yahay qofka saxda ah inuu u keeno oo bulshadan danahooda u ilaaliyo maanta marka waxaan aragnaa hadda cali mahdi oo retirement ah inuu soo kaco waxaa kalifay 16 oo mudulood ugu jiro baarlamaanka ayaa shaqadooda galay marka aan leeyahay waxa loo baahay waxay tahay asal mudulood in loola xisaabtamo ragga baarlamaanka ku jiro meel walba ay joogaan in kuletiga la qabsado waayo sababtoo ah dadkaas waxay gateen dhiigga dadka deegaanada way burbureen maadaama hadda si haddaan u hadla dhaqaale ahaan magaalada balcad waxaa ku taala 82 tuulo waxaa waaye haddaa maanta fiirisaan from xamar ilaa jowhar isbaarooyinayaan dhaqankii marka waxay galeen inay isbaaradaas taalo oo ummaddan lagu kala xiray sida ugu dhaqsiyaha badan inay kaga hadlaan sababta waxaa waaye dhaqaale ahaan ayaa loo burburayaa mar badan waxaan dhahay mudulood xoog iyo lacagta uu haayo ilaa intee ay wadi karaa haddiisan aqli aysan meesha ku jirin sababtoo ah xoog iyo lacag keli ma aha adduunku waxaa lagu kala tego waa aqli muduloodna way leeyihiin dad aqli leh dad aqoon-yahan way leeyihiin dad culumona way leeyihiin marka hadda waxaa loo baahan yahay inay saf hore ay imaadaan maadaama hadda soomaalida waxaa lagu xisaabtama ay tahay federalism ay tahay danta federalismka sida lagu ilaalin lahaa xaqa kenya odayaasha dhaqanka inay isku laabtaan mas-uuliyadood ay qaataan bulshadan ay kula xisaabtamaan maxaa la dhahaya dhaqanka in yar haddaan qabiilkii hooyada la dhahayo wuxuu ka koobayay 18 milyan 20 qof keli ayaa xukumo 18 milyan marka waxaan leeyahay maalinta waxaa daily nation ku qornaa maadaama uhuru kenyatta aadaay retirement uu aadaay qabiilada kikuuyada waxay leeyihiin ninka isaga oo hadda bedeli doona uhuru kenyatta ayuu raadinayaa sababtoo 10 sano kadib ayaa kikuuyu kusoo wareegaysaa maadaama hadda dalka kenya xukumahay 20 sano waxay leeyihiin waxaan rabnaa ninkii maanta uu maxaa la dhahaa qaybta siyaasadda uu hogaamin lahaa marka waxaan leeyahay odayaasha ogaaska dhammaan waxaa leeyahay inaad isku tagtaan danaha ummaddan waxay kasii roolgalaynayeen dalcad buu kasii socdaa sidaa marka taako ugu dhigi lahaadaan adigana aad bulsho ahaan aniga dhalinyaro ahaan simid algalay الحمد لله وكفى وصلي وسلم على خير خلقه محمد الداعي الى الحق الى طريق المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد اخيارته وسلامته حاج علي اوغاس عبد الله حايو اوغاس وسلاميها iyo madaxda iyo qaraabada imaamooyinka wanalka fadhiyo culimada iyo akhyaarta iyo haweenka iyo fanaaniinta dhamaantiina waa salaamatihiin salaam kadib xaaj cali soo dhawaaw landa ku soo dhawaaw qaraabada ku soo dhawaaw ina wax badan laga waxeeyo oo wax badan arintaas laga bedelo aysan ahayn aysan laga naqarin booti libaax le kurtun saga marka baashaas horaha loo sii wado si fiican loo sii wado shalay waxay qaraabada amalayna dadka qaarkiis maruu saafar biloodkii meesha ay maraysay shucuurta camal oo temperature-ka inuu marayo eg tahay maanta ma ahan maalin dagaal oo xabad la isku gamaayo taas shalay waa laga soo gudbay ilaahay fadligiisa iyo rag badanna waa lagu soo gudbay oo hadda naga hooseeya raggaasaysan ayagana ciil meesha ugula jirin ha loo difaaco hawsha maanta afka lay maraysaa bas waana ogtihiin hadda dagaalka wuxuu marayaa social media bas ustaad xasan sheekh macalinkeena madaxweynaha waxaan ka bartay soomaali maxay kaa goysaa kaa istaahishaa qaraaboy mudulka maxuu ka istaahilaa hala sii wado yaa meeshaas loogu sii rabiicu lcarab waxa la dhaho taqaaniin kuga carbeed social media iyo message la isu diraa oo wadamada carabta dhan lagu kiciyay dowladeenana hadda ogtihiin social media wax badan ay kusoo qabsatay haddaan haysano shalay cabdulle madaxweyne dani wuxuu dhaha maalin dhaweyd dagaalka ma ahan kii ciidanka keliya dagaalka social media oo gale bal raggaas xamar joog hana kaga celsho dagaalka hadda waxay maraysaa social media ha lagu dagaalamo gacanne ha lagu dagaalamo tolka ha lagu difaaco horena ha loo sii wado
gacanna deegaanadeeni magaalada markii muqdisho laga soo tago meelihii kale aad ay ugu bursan tahay maanta cadaada waxaa ku qoran mataqaana arrival iyo departure lane garoomadooda meelaheeni lamid ah ama ka taariikh weynahayna waa ogtihiin ama dadka jooga dadkeena oo si xun u haysto ama iskool la'aanta iyo tacliin la'aanta isbitaal la'aanta oo carruurtii hooyada isku mulaysa waa ogtihiin gacanna ha lagu bixiyo deegaanka nin walba deegaanku kasoo jeeday ha dhiso isbitaalada iskoolada dad badana dhiso doctor marocco kamid ah gaaralaasi sheekeena iyo in badan oo magacooda wada xusi karin isbitaalada hala dhiso iskoolada hala dhiso cabdiraxmaan xasan jimcaale barakaatu waqtiga oo yar awgiis inaan tirino qaybaha bulshada waxaan maleenahay ka maarmi karno waxaan soo dhaweeynaa xaaji cali ugaas cabdulle meelii caawa ka hadlaysay meel wax yar ka duwan rabaan inaan ka galo xaaji cali ugaas waxaan maleynayaa muddada laga joogo 25 sano ka hor ayaa hadda ka hor imaamka naga carooday imaam maxamuud imaam cumar marka macalin nuuraan abaabulu yiri waxaa la rabaa in imaamka loo hoydo dadkii hogaaminaya ku mid ahay marka oo isla tagnaado uul habeenkaas shir buu tiriyay marka inuu xasuusto ma sheegi karo marka shirkaan la sheego ma xasuustaa wuxuu dhahay dhibaan dhagax isma dhibte dharkaaga dhaqmaadiisa dhowr dhibaan dhagax isma dhibte dharkaaga dhaqmaadiisa dhowr habeen aad u qiimo badan ay ahayd macnaa cali mahadeen hogaaminayay dadka ugu yaryar aan kamid ahay xilligaas dadka ugu waaweyn kamid ah meesha laakiin markaas dadka ugu yaryar aan kamid ahay habeen aad u qiimo badan ay ahayd oo in la xusuusto baan xuseen sheekh axmed kadare oo habeenkaas asigana generaalkii adeerkeena ay xoogaa jugsiyo yiri imaamka wuxuu yiri lama dhaliya mid soo dhaweey midna dhaqaaji waa dhiib weyn waxaa u jawaabay marka xuseen sheekh axmed kadare la xariistay dhammaantood markaasuu dhigaag dhalhood sheegtay dhaliyaalagu dhaqaajima dhaydow saalinko dhijiya marka habeen qiimo badan ay ahayd inta badan rag ii muuqday xuseen xaaji bood injineer cabdow rag badan aa dhinteen oo meesha joogay habeenkaas inta noolna ilaahay noo xafido inta dhimatana allah naxariisto waxaa loo baahan yahay marka hoggaankaas xilligaas jiray imaamkii habeenkaas waxaa